Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Habeen wanaagsan, jimco wanaagsan, idil ahaantiin dadka Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku hadla dunida daafaheeda ku nool. Jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay. Jaalayaal ku soo dhawaada YouTube-kii aad had iyo jeerba kaga barataan inuu garaadkiina kor u qaado. Waa garaad dhisatiyo. Caawa waa jimco. Jaalayaal waxaan jeclaystay inaan idila wadaago dhowr sawir oo markaas sida ay u yaalaan ama actionka iyo sida loo diyaariyeyba aan anigu la cajabay. Haddaba sawiradaasi yaynu gali doonaa oo markaa ugu qosolka badan yaa caawa soo qaadan doona. دمشاد إلى عيار دمشاد إلى عيار دمشاد إلى عيار Please waxaan ku xasuusinayaa ma aadan ilaawin inaad muuqaalkan like saarto, share dhahdo, comment aad ka soo baxsato actionkii ku cajibiya. Sidoo kale waxaan ku xasuusinayaa inaad subscribe inaad saarto channelkayga. aad u mahadsan tahay. Muuqaalka koowaad ama sawirka koowaad ee caawa waxa uu noqonayaa sawirka koowaad waa daanyeer. Dabcan aad u jeedo qaabka uu u yaalo iyo af Soomaaliga lagu soo qoray. Waa af Soomaaliga dambe inta lagu dhoolo cadeeyo lagu noocaas ma tahay. Ya salaam. Actionka iyo qaabka qoraalka uu isleeyahay. I like it. Sawirka xiga waxa weeyaan dameer ama ximaar miis iyo dhalo iyo receiver la isku dul saaro. Actionka uu fiirinayo, dhagaha sida u taagan yihiin, indhaha sida ugu hayo, dhalada way daaran tahay oo gadaashaana halkaa eeday waxyaabo baa joogaan. Waa muuqaal kale oo isna cajiib ah. Dameer ala fiirsanaa markaad arkaysid ma bini'aadan baa waxyaabo aad isweydiinayso weeyaan. Muuqaalka xiga waa cunuga yar. Dabcan sidaan qiyaasayo ciyaalkan Afrikadan isaga nool waxay joogaan meel qurux badan oo beera, balse wiilka yar ee dhexda ku jira qasabkii waxaa laga dhigay microphone, warqad ee foorana ama warqad caadiina gacanta ku qabsado. Dabcan wuu ka turjumayaa qof madax ah ee shir jiraa'id qabanaya, danna mikrofoonadii aag laga wardiinaya iyo wiilka dheer ee ookiyaalaha wata qoriga alwaax ayuu ku wardiinaya. Dabcan sawiradii aadka iga qosliyey, adiguna aan rajeynaya aad ku qosli doonto. Sawirka xiga haddii aynu galnana waxa weeyaan dhowr sawir oo isdul saaran, laakiin macnaha ku jira aynu isla aragno. Qoraalka kood waxa uu leeyahay waa in aan aadaa dhakhtarka indhaha. Yarkii ama ninkii basada xirnaa baa yiri, laakiin sabab dhagta buu usoo raariciyay. Ninkan afku usoo dhaway waxa uu yiri, timahaaga waan arki la'ahay. Ninkii waxaan arkay qabta dulliga ka dhacday. anuu ninkan de waa iska dhalacadey meeshiisa. meeshaan uu kuftamaya waxa uu leeyahay waan arki la'ahay tuntaada. waa hagaag. Haddii aynu soo qaadano waa sawir lagu soo qoray si haddii la yiraahdana iska hadal tahay. waxaa la leeyahay cilmi baaris dheer ay sameeyeen dhakhaatiirta waxaa la ogaaday in shirka dumarka caafimaad yahay una run yahay xasuus soo celinta ragga. waxaa lagu sii qoray kadib hayee doliga. dabcan muuqaalka haweeneyda ninka sida actionka u dhahayo Soomaaliga lagu soo qoray hayee doliga innaba caadi ma ahan. waa iga ilmaysiisaan ugu qosol. waa hagaag. sawirkan aad arkaysid waa cunug yar gacanna midig iyo bidix meel kala dhigtay, hortana la dhoola cadeynayo.
waxa uu leeyahay I love sleeping waxaan jecelahay hurdada because maxaa yeelay dreams riyooyinka are better than reality riyooyinka waxa ay ka wanaagsan yihiin buu leeyahay markii la joogo realityga ama dhabta markii la joogo wow lahdiisa beer ee aadka ii soo jiitay inaan adiguna kula wadaagay insha allahu tacaala next Friday ama jimcaha soo socda iyo sawiro kale oo noocaana madadaalo noo noqon doono yaan isugu imaan doonaa inta ka sokaysana ha ilaawin please inaad subscribe saarto channelkayga like share commentigana inaad ku soo qorto intii aad daawatay mahadsanid asalaamu calaykum